Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo la kulmay taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo laamaha amniga gobolka Banaadir ayaa la wadaagay qorshaha lagu dardargelinayo ammaanka, dhamaystirka dib u habeynta ciidamada iyo la dagaalanka argagixisada. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa u soo bandhigay taliyaasha ciidamada ee uu la kulmay mudnaanta uu siinayo xasilinta amniga guud ee dalka iyo xoojinta wada shaqeynta hay'adaha amniga heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Laamaha amniga ayuu xasuusiyay Ra'iisul Wasaaruhu waajibka ka saaran ilaalinta nabadgelyada iyo fududeynta dhaqdhaqaaqa bulshada iyadoo la xoojinayo dadaalada lagu xaqiijinayo xasilinta caasimadda. Kulanka oo ay ka qayb galeen siyaha Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, xubno ka tirsan golaha wasiirada ayay dhankooda sheegeen saraakiisha hay'adaha amnigu inay ka shaqeynayaan dardargelinta qorshaha ku aadan amniga iyo la dagaalanka argagixisada, sida uu sheegay siyaha wasiiru dowlaha xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Cabdullaahi Xamuud. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Galab wanaagsan. Waxaa maanta inoo qabsoomay shirkani caadiga ahaa isbuuclaha ee arrimaha amniga oo maanta daadihinayay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Maxamed Xuseen Rooble ay ka soo qayb galeen dhammaan hay'adaha amniga iyo taliyaashooda xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska Ra'iisul Wasaaraha wuxuuna warbixin ka dhageystay meesha ay marayso dib u habeynta ciidamada qalabka sida ay u dhan yihiin iyo horumarka laga soo gaaray. Ra'iisul Wasaaraha wuxuu tifaftir balaaran ka dhageystay amniga caasimadda iyo howlgallada ka socda gobolada Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe oo ah albaabka laga soo gali lahaa magaalada caasimadda. Ra'iisul Wasaaraha wuxuu ballan qaaday in uu sii wadi doono si dhowna ugu warqabi doono arrimaha dardargelinta tayeenta ciidamada qalabka sida kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliiskaba si loo hubiyo amniga wadanka iyo amniga caasimadda. Wuxuu kaloo si fiican ugu dhiirigeliyay in shaqadii la soo qabtay muddadii ay xukuumadda madaxweynaha uu ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in shaqadii la soo qabtay aysan marnaba u hakan karin waqtigan hadda lagu jiro oo wada guurka ah oo doorashada la gali doono. Ra'iisul Wasaarahana uu si dhow kula socon doono arrimaha dardargelinta ciidamada qalabka sida. Nasr Bashiir Ali.